ogow nooca dhiigaaga si aad u badbaadiso naftaada iyo nafaf kaleba waa barnaamij aan ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed ama guud ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho inaan si mutadawacnimo ama free ah aan u barno nooca dhiigooda si ay u badbaadiyaan naftooda iyo naf kaleba qofku markuu garanayo nooca dhiigiisa waxa u fudud inuu si sahlan ugu shubi karo qof kale oo walaalkiisa una dhiban nooca dhiigiisa haddii uu qofkaas emergency la kulmana waxa fudud in la ogaado nooca dhiigiisa waxaan lagu badbaadin karaa waqti kooban dhaqaatiirta aan bahda caafimaadku waxay dhahaan minute saves life daqiiqadaha ayaa nolosha badbaadiya sidaas darteed haddii dhiigga noocaaga aad og tahay waxa fudud haddii aad emergency la kulanto in si dhaqso ah qofkaas loola tacaalo muhiimada ugu weyn ee aan ka leenahay waxay tahay in ardaydeena Soomaaliyeed maadaama looga baahan yahay in la ogaado nooca dhiigooda in aan maalinka iyo waliba waqtiga iyo wixii aan awoodno aan ku saacideyno annagoo ah walaalahooda kala Soomaaliyeed dalkoodan wax ku bartay in aan cilmiga aan baranay aan qayb ka gaarsiino waxaan rajaynaynaa in aan asbuuc walba hal maalin oo kamid ah aan baarno noocyada dhiigga dad ku dhow ilaa iyo 100 qof maanta waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkeena ama guud ahaan ku daafuri doonaa iskuul kamid ah iskuulada ugu caansan magaalada Muqdisho waana Hoyga Xamar wuxuu nasiib u yeeshay inuu noqdo iskuulka ugu horeeyay ee aan barnaamijkan ka fulin waxaan ka qaadi doonaa ama aan dhiigga noocooda ogaan doonaa ilaa iyo 100 arday oo maanta nasiib u yeelatay waan ku faraxsanahay inaan meeshan ka soo qayb galno waxaan rajaynaynaa inuu mashruuceenu si wanaagsan ugu dhamaan doono waxaan leeyahay wixii aad hayso oo aad ku saacido dalkaaga ayaa anfacaya maadaama aan bahda caafimaadka baranna cilmiga caafimaadka waxaan fursad u haysanaa inaan dadkeena caawino waxaan ku caawinaynaa inaan ogaano noocyada dhiigooda ayagana fursad u ah annagana muhiim inoo ah barnaamijintii waxaan la joognaa muasisihi Hoyga Xamar Saacid Raxmaan Ustaad Suluul maanta barnaamijka aan sameeynay sida u aragtaa in ardayda dhiigooda la baaro waliba si free ah ardayda Soomaaliyeed lagu caawiyo iyo waxa aan ugu talinayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan runtii aad uga mahadcelinayaa groupkan sameeyay groupkeeda oo runtii si mutadawacnimo noogu imaaday oo haddana maanta saacado yar inala joogaan ilaa 50 ka badan arday groupkooda u sheegay oo siiyayna kaarkii groupka ugu qornaa runtii taas waxa weeyaan wax badan ayay waxay ka taraysaa badbaadada ardayda sababtoo ardayga hadii asagu ay wax gaaraan oo dib uu qabsado hadii uu yaqaan nooca dhiigiisa uu yahay intii waqti ku lumin lahaa baaris dhiig ama la qaadi lahaa meel lagu baaro inuu og yahay oo kaarkiisa uu la soo baxo oo isla markaasna la siiyo dhiigiisii lagu badbaadiyo waa wax weyn waaye wuxuuna tan u tahay mid kale qof dhimanaya oo dhiig u baahan asaguna in qofkii bixin lahaa inuu yaqaan aniga waxaan ahay dhiigga noocaas hal iga shubo waa ayaduna wax weyn waaye marka runtii badbaadada nafeed waaye oo qayb ka qaadanayaan waan ugu mahadcelinaynaa waana la shaqaynaynaa waana garab taaganahay waliba waxaan rajaynayaa in maalmo badan ay yimaadaan sababtoo ardayda dhan rabaan 1500 arday joogto subax ay joogto inta kulli way wada rabaan inay ogaadaan marka waxaan idinka codsanaynaa in waqti nasiisaan oo waqti badan aan nasiisaan oo intaas oo arday oo dhan oo dhiigooda noociisa rabay inay ogaadaan aad siisaan insha Allah daliyaado waan idinka mahadcelinaynaa qabadka iyo hawsha iyo waqtigiina aad nageliseen waan maasantiin